Mossad iyo xubnaha la shaqeeya waxa ka bilaabmay dhaqdhaqaaq xoogan oo ah baadidoonka sirdoon ee Fatxi Ashiqaaqi iyo halka uu ku sugan yahay. Kooxda Kiidun loo yaqaano waxa lagu amray in ay fuliyaan dilka Ashiqaaqi, waana kooxda kaliya ee loogu talagalay in ay fuliyaan dilalka dibadda. Kooxdan Kiidun lagu magacaabo ayaa ah kooxda kaliya loogu talagalay in ay fuliyaan dilalka dibadda iyagoo oon ka tagaynin wax cadeymo ah iyo raad loo soo raaci kara hadhowto, taasi oo loogu talagalay haddii ay geystaan afduub ama wax la mid ah ay fuliyaan hawshaasi isla mar ahaantaasina ay u fuliyaan sida loogu talagalay iyagoo oon ka tagayn wax cadeyna. waxa balse dhibtu ay noqotay in Ashiqaaqi laga war helay inuu joogo magaalada Dimashq oo aanu ka bixin, taasi oo ay ka jirto dawladda Suuriya oo ay col yihiin dawladda Israa'iil. kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu amray in la dilo Fatxi Ashiqaaqi, waxaanu isweydiinay qaabka loo dilayo iyo isaga oo ku sugan gudaha Dimashq isla mar ahaantaasina marti u ah hogaamiyaha Suuriya Xaafid al-Asad oo madaxweynihii hore, kaasi oo la guri khaas ah xafiiskiisna uu yaalo bartamaha Dimashq oo ay adagtahay in lagu dhex dilo halkaasi. waxaanu soo bandhignay qaabka loo dilayo in rasaas lagu furo, in gaadhigiisa la qarxiyo, in sun loo dhigo iyo wax la mid ah, balse waxaanu ka dhareegsanayn in Suuriya aan laga bixi karin haddii ay arrintaasi dhacdo, waayo waxa la shaqeeya sirdoonka Suuriya Fatxi Ashiqaaqi. haddii ay ogaadaan arrintaasi dhacdana waxa la xirayaa dhammaan xuduudka madaarada iyo sidoo kale dekedaha, waxaana adkaanaysa qofka fuliyay howlgalkaasi inuu ka soo baxo gudaha Suuriya oo imaado dalka Israa'iil. kadib waxaanu isla rogrognay hawsha, waxaanaanu isla meel dhignay in Fatxi Ashiqaaqi ay adag tahay qaabka loogu dilo. hogaamiyaha sirdoonku waxa uu sheegay in ay Suuriya gaar ahaan Dimashq tahay goob aad u adag oo ay tahay inay Mossad wax ka fuliso mid aad u dhib badan tahay, waxaana taasi ay keentay in ay muddo qaadato go'aankii laga gaadhi lahaa qaabka loo dilayo Fatxi Ashiqaaqi oo marti u ah hogaamiyaha Suuriya Xaafid al-Asad. muhiimada Dimashq laga lahaa taasi kuma eekaanina waxa ay keentay in laga fuliyo hawlo amni darro gudaha Suuriya, waxaana Ashiqaaqi soo waajahay cabsi xoogan isagoo og inay diiradda Israa'iiliyiintu hayso isla mar ahaantaasina ay adag tahay sida uu kaga badbaado. balse Ashiqaaqi qudhiisu ma uu helin xubno ilaaliya ammaankiisa iyo sidoo kale xubno baadha toona cidda uu la kulmayo, taasina waxa ay keentay in uu baylahu noqdo dilka lagu fulin karo goob kasta iyo goob kasta uu ku sugan yahay. sidoo kale waxa adkaatay in uu ka cabsi lahaado ama ka warwar lahaado sida uu soo gaari karo xafiiskiisa oo ku yaala bartamaha Dimashq marka uu shaqo imanayo. ujeedka guud ee Mossad sida uu sameeyay in ay Suuriya ka shakido hogaamiyayaasha Lubnaan iyo sidoo kale sirdoonka Lubnaan ee arrintani ka dambeeyaan si ay iyagu isku mashquulaan oo uga faa'iideystaan dilka Ashiqaaqi. taasina waxa ay u eg tahay mid fudud isla mar ahaantaasina ay fulin karaan dilka Ashiqaaqi waqtigan la joogo. Israa'iil waqtigani waxa uu eg tahay mid ka baxday heshiiskii qarsoodiga ah ee wada galeen sirdoonka Israa'iil iyo kuwa Suuriya oo ahaa in aan gudaha Suuriya laga geysanin wax dhibaato u keenaya shacabka Suuriya iyo sidoo kale martida Suuriya ku sugan toona. balse tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ay Mossad ka helayso in ay disho Fatxi Ashiqaaqi, taasi oo noqonaysa in ay ka warwarlaadaan isla mar ahaantaasina ay u arkaan in hoos u dhacday khatartii uu ku hayay Fatxi Ashiqaaqi ammaanka Israa'iil. bilayar kadib waxa soo dhawaaday sida ugu fudud loo dili karo Fatxi Ashiqaaqi, taasi oo ahayd in ay Mossad ku dhex darsatay xubnaha la shaqeeya Ashiqaaqi nin lagu magacaabo Cabdilqaadir Saalex, kaasi oo noqday mid ka agdhow
فتحي الشقيقي إسلام رهان تاسنا كلا شقية حفيز كو شقيقي كلية عاصمة دمشق برتمه هذا عبد القادر وحوف الله تينو كاول قلا حفيز كخاص كيا دكتوركا وقت كي سورة وحوها نينك شقية موسى إسلام رهان تاسنا وقابل سن جزيرة قبرص كاسي أوها شخصي وقابل سن كوركيني ده حبناها يصودر سزان أرضي ده يصودر سزان كوحدة حرين فلسطينيين بي الله يقاني وقت كاسي بس مركز هالكن لو صوريتي وحلوقو تلاقان إنه علامة دي حلقة للدري كرا فتحي الشقيقي sidoo kale goobta lagu dili karo waana mid soo dhawaatay waana mid u fududaatay si degdeg ah waqtigaas in loo gaadho isla mar ahaantaasina loo soo afjaro shaqiiq arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in xubnaha Falastiiniyiin ay la shaqeeyaan kooxda Mossad ee loogu talagalay dilka iyo dabargoynta hogaamiyayaasha Carbeed iyo sidoo kale madaxda Carbeed waxaana cajiibka ay tahay in xubnahaasi ay uga shaqeynayeen dalka dibadiisa sida jasiiradda Qubrus iyo sidoo kale dalka Suuriya waxaana arrinta ummadda ka yaabisay ahayd in ninka xadiday dilka shaqiiqi uu ahaa nin Falastiiniya kaasi oo lagu magacaabay Cabdulqaadir Saalix isla mar ahaantaasina ahaa shakhsi ka soo jeeda dalka Falastiin kaasi oo u huray walaalkii in la dilo waa Dr. Shaqiiqi waxaana uu ahaa ninka fududeeyay si fudud loo dili karo Fatxi Shaqiiqi oo calaamadiyay goobta lagu dili karo isagoo ahaa nin uu aaminay doctorku kana shaqeeya xafiiska khaaska ee doctorku ku lahaa magaalada Dimashq caasimadda Suuriya balse waxaa jirteen xubnaha sirdoonka ee Israa'iil dabagalku ayaan waraaqaha iyo sidoo kale telefoonada u isticmaalo Fatxi Shaqiiqi oo uu fududeeyay ninka la shaqeeya Cabdulqaadir Saalix loo yaqaano kaasi oo ka howlgelaya xafiiska khaaska ee doctorka kana warhaya dhaqdhaqaaq kasta oo sameeyay doctorku balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in aanu doctorku marnaba ka shakiyin qofkani oo ah qofka xadidi doona halka uu ku dhiman doono Dr. Fatxi Shaqiiqi بلاير كدب عبد القادر waxa uu soo gudbiyay goobaha shiqaaqa uu tagay sidoo kale goobaha laga heli karo oo ay kamid tahay Tehran oo caasimada Iran iyo sidoo kale Dimashq caasimada Suuriya Beirut oo caasimada Lebanon iyo sidoo kale xilliyada qaar oo laga heli karo dalka Liibiya waqti laga helay Mossad waxa ay tilmaamaysaa in ay soo martay daqiiqad khaas ah kooxda kiidoon loo yaqaan ee dilka hogaamiyayaasha loogu talagalay taasoo ay kula kulmeen goob la xadiday oo Fatxi Shaqiiqi uu ku sugnaa waxaana ay rasaasayeen Fatxi Shaqiiqi balse kuma dhimanin Israa'iilna wax faahfaahin kama dhicin sida hawshaasi u dhacday balse Fatxi kama uu filayay naagtiisa ka dhaween xubno kamid ah Mossad isla mar ahaantaasina yihiin kuwa soo rasaasayay xubno kamid ah sirdoonka Israa'iil waxaana ay taasi keentay in aanu Fatxi Shaqiiqi dhaadin dhibta lagu soo wado iyo sidoo kale dhayarta loo qorsheynayo waxaana arrinta cajiibka ay tahay in aanu marnaba Fatxi Shaqiiqi agtiisa ka eegin inay u soo dhawaan karaan xubnaha Israa'iiliyiinta isagoo ku kalsoona ammaanka Dimashq iyo sidoo kale gudaha Suuriya bishii Oktoobar ee 1995 waxa Muammar al-Qaddafi madaxweynihii Liibiya uu soo diray casuumad khaas ah wafdi kamid ah Falastiiniyiinta si uu uga xaajoodo qaxoontiga tirada badan ee ku sugan gudaha Liibiya kuwaas oo gaaraya 300,000 oo qof oo degan gudaha Liibiya si uu uga war doono xaaladooda isla mar ahaantaasina uga warramo waxa ay ku sugan yihiin qaxoontigaasi waxaana wafdigaasi kamid ah Fatxi Shaqiiqi oo ahaa mid kamid ah xubnaha ugu dhow Muammar al-Qaddafi ee xiriirka la leh reer Falastiin iyo sidoo kale xubno kale oo kamid ah xubnaha hogaamiya kooxaha ka jira gudaha Falastiin kuwaas oo la kulmay Muammar al-Qaddafi isla bishaas waxaa isla soo qaaday lagana wada hadlayn qaxoontiga dib loo celin karayo sidoo kale in lagu dayo gudaha Liibiya muddo dheer iyo falanqayn kadib waxa lagu daayay in qaxoontigu ay ku sii sugnaadaan gudaha Liibiya oo Falastiin dib loogu celin karin maadaama ay tahay dal la haysto isla mar ahaantaasina go'doona xilli uu xaalku halka marayo waxa Fatxi Shaqiiqi uu wareegay isagoo ka yimid magaalada Dimashq jasiiradda Malta oo u dhow dalka Liibiya isagoo oo soo raacay dooni kuna soo safray dhanka Liibiya caasimadiisa Tripoli Malta
waa goobta loogu talagalay in loogu dhameeyo fatxi ashiqaaqi waxaana kooxda kiiduun ee dilalka qaabilsan ay sii tagtay ka hor intii aanu tegin balse shiqaaqi markii uu gaadhay Maalta oo ahayd 4 Oktoobar sanadii 1995 waxa uu si degdeg ah u raacay dooni uu ku safri lahaa taasi oo geynaysa caasimadda Tripoli ee dalka Liibiya waxaana ay kooxdu sugtay inta uu soo noqonayo laba cisho kadibna waxa uu soo gaadhay magaalada Tripoli isagoo uga sii gudbay magaalada xeebeedda Sirta kaasi oo kula kulmay hogaamiyihii Qadaafi halkaasi kulanada istaba jooga ay yeesheen Muammar al-Qadaafi iyo Fatxi al-Shaqiqi waxa markii dambe la go'aansaday in Falastiiniinta loo daayo gudaha Liibiya isla mar ahaantaasina laga soo celiyo xuduudka Liibiya iyo Masar u dhaxeeya kadib markii uu Shiqaaqi u soo bandhigay dhibaatada Falastiiniinta lagu hayo iyo inaan dib loogu celin karin dhulkooda maadaama uu dhulkoodu yahay dhul la haysto isla mar ahaantaasina aan loo ogolayn iyagoo aan ku heli karin ammaan iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah ee laga maarmaanka u ah nolosha aadamaha waxaana ugu dambeyntii Qadaafi go'aansaday in hawsha la xalliyo xalkana lagu daayo sidii hore ay Falastiiniintu u joogeen gudaha Liibiya waxa mar kale soo dhawaatay geeridiisa isagoo ku safray jasiiradda Maalta dhinaca badda ee Liibiya u dhaxaysa waxaana xubnaha kiiduun ay joogeen goob kasta oo ka tirsan jasiiradda Maalta khaasatan deegaanka ay ku taalo dekadda ee laga soo dego balse arrinta la yaab kale ayaa ahayd in uu Shaqiqi soo qaatay baasaboor Liibiyaan oo ku isticmaalay magaca Ibrahim kaasi oo ay hore u aqoonsan waayeen kooxdii kiiduun ee loogu talagalay inay soo fuliyaan shirqoolka lagu dilay Shiqaaqi balse waxay heleen sawirkiisa iyaga oo dabagalay waxaana uu ku talagalay inuu ku hoydo hoteelka diblomaasi loo yaqaan ee ku yaala jasiiradda Maalta ka hor intii aanu u bixin magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya waxa uu hoteelka soo gaaray 10kii subaxnimo iyo 30 daqiiqo kadibna waxa uu magaca qolka ku kireystay Ibrahim isagoo oo la moodayay sidii nin ka tirsan safaaradda Liibiya ama muwaadin Liibiyana Shiqaaqi waxa uu qolkiisa ku sugnaa muddo hal saac kadibna waxa uu baxay saacadu markay ahayd 11 iyo 30 daqiiqo isagoo ka baxay hoteelkii waxa uu tagay goobta ama xafiiska diyaaradaha si uu goosto tigidhka uu ku tagay magaalada Dimashq ee uu ku laaban rabo Britole balse waxa inta ku daba jiray mid kamid ah kooxda hawshani fulinaysa waxaana uu markii dambe diyaariyay in la rasaaseeyo taasi oo keentay in markii wadada uu marayay la rasaaseeyay isla mar ahaantaasina dhowr jeer ay ku soo rideen rasaasta laakiin ay markii dambe la waayeen taasi oo noqotay qorshe fashilmay mar labaad waxaana ay isku dayeen inay jasiiradda Maalta ku dilaan balse waxay noqotay mid suuragali weyday ugu dambeyntii waxa uu hoteelkii uu deganaa ku sugnaa muddo gaaraysa saacad iyo badh waxaana 11 iyo 30 daqiiqo uu baxay banaanka isagoo ka baxay hoteelka waxaana uu tagay xafiiska diyaaradaha kaasi oo ka goostay tigidhkii ugu noqon lahaa magaalada Dimashq waxaana uu ku soo laabtay hoteelka balse waxa uu la kulmay ka hor intaan hoteelka soo galay rasaas taasi oo uu ku furay mid kamid ah kooxdii kiiduun loo yaqaanay ee fulinaysay hawshani waxaana ay ku sii sugayeen halkaasi iyagoo ka warhayay dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale goob kasta uu marayo waxaana taasi ay keentay in rasaasta ay ku dhacdo isla mar ahaantaas sida qaar kamid ah kaga dhacaan madaxa taasina ay keento inuu goor dambe halkaasi ku dhinto kadib markii ay hubsadeen kooxda kiiduun halkaasi ku dhintay isla mar ahaantaasina ugu qurbaxay bartaasi ninkii loo dan lahaa iyo hadafkii halka loo soo maray waxa ay ka baxeen isla goobtii waxaana ay raaceen gujis taagnaa badda jasiiradda Maalta kaasi oo ay lahayd xukuumadda Israa'iil isla mar ahaantaasina ay dib ugu laabteen dalkooda Israa'iil iyagoo dalka Israa'iil ka xisaabsan halyeeye qaran iyo sidoo kale hogaamiyayaal loo baahnaa xilligoodii
waxay kooxda dembi baadhista ee maalinta soo gaadheen goobta 2:30 daqiiqo waxaana ay bilaabeen baadhitaankoodii 2:38 daqiiqo iyagoo helay sawirro ay ka muuqdaan rasaas fara badan waxaana ay sheegeen in rasaasta la isticmaalay ay ahayd 9 mm oo keliya taasi oo keentay inay madaxiisa dhex fadhiisato isla mar ahaantaasina aanay ka gudbin waxaana ay sheegeen in qofka toogtay uu jiray wax ka yar 20 tallaabo taasina ay keentay inuu shiqaaqi si fudud u dhinto isla mar ahaantaasina uu halkaasi ku geeriyoodo sidoo kale baadhitaankooda waxa ay ku heleen goobta lagu dilay oo ahayd hotelka hortiisa sawirro kale oo muujinaya qaabka loo toogtay iyo sidoo kale halka ay kaga dhacday rasaastu taasi oo qaar ka mid ah kaga dhaceen madaxa waxaana hogaamiyayaasha Malta ee boolisku ay sheegeen in waqtigaasi wasiir ka mid ah jasiiradda Malta oo ku sugnaa Israa'iil kaasi oo sheegay in uu dhintay nin Liibiyaan oo haystay baasaboorka Liibiya balse aanu ahayn ninka la dilay ninkii loo dan lahaa balse Israa'iil ayaa u sheegtay ninka la dilay inuu ahaa ninkii loo dan lahaa halkaana loo soo maray waxaana goor dambe xaqiiqa noqotay tii Israa'iil oo noqotay qofka la dilay inuu noqday Fathi Ibrahim Ashiqiqi diktoorkii hogaamiyay kooxda jihaadiyiinta Islaamiga ee Falastiin waxa warbaahinta loo sheegay ninka dhintay inuu yahay nin Liibiyaan ah isla mar ahaantaasina u dhashay dalka Liibiya balse warbaahintu waxay goor dambe ogaatay isla mar ahaantaasina xukuumadda Israa'iil sheegtay ninka la dilay inuu ahaa Fathi Ibrahim Ashiqiqi hogaamiyihii xarakada Islaamiyiinta ee Falastiin waxaana taasi ay goor dambe cadaysay isla mar ahaantaasina ay beenisay warkii wasiirka Malta ee uu bixiyay ee ahaa in qofka la dilay uu ahaa Liibiyaan ugu dambeyntiina uu noqday ninka la dilay Fathi oo ahaa ninkii loo dan lahaa isla mar ahaantaasina halka loo soo maray balse su'aasha isweydiinta ayaa waxay tahay yaa ka qayb qaatay dilka shiqaaqi marka laga yimaado kooxda Kiidun ee u qaabilsan Muuse dilka shakhsiyaadka noocan oo kala yaa sabixiyay xogta shiqaaqi ee inuu ku sugan yahay halkaas isla mar ahaantaasina uu xilligaas soo laaban doono arintani waxay ahayd mid markii hore qarsoon balse ciidanka Malta waxa ay soo bandhigeen in mid ka mid ah sirdoonka Liibiya uu sheegay in ay la shaqeynayeen sirdoonka Liibiya sirdoonka Israa'iil kuwaas oo uu gudbiyay goorta uu safrayo goobaha uu ku safrayo sidoo kale goobta uu degi doono waxaana Liibiya gudaheega ninkani looga arkayay gaar ahaan Qadaafi uu warkay in khatar ku ah ammaankiisa isaga oo Qadaafi aaminsanaa in shiqaaqu uu yahay nin soo kicin kara bulshada Carbeed isla mar ahaantaasina kor u qaadi kara shacabka reer Falastiin taasina ay keentay in Qadaafi iyo xukuumaddiisu ay ka shaqeeyaan si loo fududeeyo dilka shiqaaqi taasina ay keentay inay goor dambe xogsiyaan kooxda dilkani fulinaysay waxa sidoo kale baaritaanadu ay inta ku darayaan in markii hore loo haystay kooxda Muuse oo kaliya inay dishay balse aan meesha laga filayn inay soo gali karaan sirdoonka Liibiya balse xog dambe la helay ay ahayd in sirdoonka Liibiya ay qayb ka ahaayeen taasina ay keentay in isku dhac u dhaxmaro Qadaafi iyo kooxaha Islaamiyiinta ka hor intii aanu dhiman Dr. Shiqiqi isla mar ahaantaasina taasi ay soo dadajisay in Shiqiqi dilkiisa looga howlgalo si degdeg ah isla mar ahaantaasina loo soo gabagabeeyo noloshiisa waxaana ay ciidamada Malta goor dambe soo gabagabeeyeen baaritaankoodii markii ay ogaadeen in labada dhinac ay iskaashadeen balse arintan caadi looga jawaabi karinaya waxay tahay khilaafka dhex yaallay Qadaafi iyo Shiqiqi oo ilaa hadda aan la garanayn nooca uu ahaa balse dadka qaar waxa ay sheegayaan in Shiqiqi uu Qadaafi warkayay in uu Shiqiqi yahay nin sirdoon isla mar ahaantaasina ka dhex shaqeynaya gudaha Liibiya taasina ay keentay inuu Qadaafi ka shakiyo Fathi Ashiqiqi isla mar ahaantaasina uu go'aamiyo in gacan la siiyo Muuse Israa'iil si loo soo gabagabeeyo nolosha iyo sidoo kale xaalka uu ku sugan yahay Shiqiqi ugu dambeyntiina ay suurta gashay
waxaa sidoo kale baaritaanadu ay intaasi ku darayaan in Qadaafi uu sheegay isla mar ahaantaasina uu gudbiyay hogaamiyayaasha Israa'iil xilliga uu joogay shiqaaqa dalka Liibiya oo ahayd 3 toddobaad doonyaha uu raaci doono oo uu ugu safrayo Liibiya ilaa Malta iyo Malta ilaa Liibiya goorta uu deganaan doono iyo sidoo kale goobta uu degi doono oo ah hotelka diblomaati iyo sidoo kale xilliga uu doonan doono ama uu qorsheysan yahay inuu ka duulo jasiiradda Malta si uu ugu noqdo gudaha Suuriya oo ahayd caasimadii uu deganaa أنا لا أعتقد أن وحبناها قار كقيب قاتي برنامج كناية الروميسيين إن هدف كلو ديال الشقاقي أنا هاين إن لسوق بجبية نروشيسا أما عقباتكو يا إسرائيل balse ay ahayd in la soo gabagabeeyo wadahadalladii u bilaabmay Israa'iil iyo Yaasir Carafaad sanadii 1993 waxa shiqaaqi dalka Falastiin looga arkay hogaamiye isla mar ahaantaasina mujaahida kaasi oo ka soo horjeeda shacabka Yuhuudda iyo dawladda Israa'iil balse dhanka Israa'iil waxa looga arkay in sharwadeena isla mar ahaantaasina khalkhal gelinaya ammaanka Israa'iil taasna ay dhibaato ku keenayso shacabka Israa'iil iyo sidoo kale dawladda Israa'iil waxana ay taasi keentay in la go'aamiyo dilka shiqaaqi isla mar ahaantaasina gudaha Israa'iil looga gudbiyo sawira inuu خطر ku yahay amaanka Israa'iil waxana ay rumaysan yihiin xubnaha Israa'iiliyiinta ee sirdoonka ee ka qayb qaatay barnaamijkani in dilka shiqaaqi ay ahayd guul soo hoyatay gudaha Israa'iil balse su'aasha ay isweydiiyeen ayaa in shiqaaqi dilkiisu uu wax ka bedelay xaalkii u dhaxeeyay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta iyo sidoo kale inuu sii kordhiyay kooxihii hubaysnaa ee ka howlgeli jiray marinka Gaza iyo daanta galbeed ee gudaha Falastiin la haysto